muuqaalka kanna waa muuqaalkeenii saddexaad iyo podcastigeenii aan oga hadlaynay qur-aanka iyo sayniska. haddaad horey soo daawatay waxaa horey aan usoo gudbinay muuqaalkii koowaad oo isagu markaasi ahaa hordhac aad iyo aadna muhiim u ahaa qofka fahankiisa inuu fahmo meesha ay xiriirka ka leeyihiin qur-aanka iyo sayniska iyo maxaa la iskala soo dooranaya. haddii su-aalaha isweydiinaysid meesha aan ugu samaynay linkin ama xiriirka aan ugu samaynay muuqaal koobaad ayuu ah. muuqaal koobaad ayaa dib u daawanaysa, haddaad youtube-ka naga daawanaysana waa ka helaysaa. haddii sidoo kale Facebook page-ka naga daawanaysana asagana sidoo kale waad ka helaysaa. muuqaalka labaad waxaan uga hadalnay Morris Buka iyo doctorkii Faransiiska ahaa iyo cilmi baaristii ugu sameeyey qabrigii, waxaan ka wadaa meydkii ninkii la oran jiray Fircoon, iyo sidoo kale ugu dambeyn natiijadii uu gaadhay iyo diinta islaamka siduu ku qaatay, iyo sidoo kale weerihii cajiibka ahaa ee uu ku qeexay islaamka, iyo sidoo kale nabi maxamed nabinimadiisa waxa cadaynaya. waxaa kale oon muuqaalka labaad kaga hadalnay aayad ilaahay uu tilmaamayo in culumta maadiga barashadeeda waa aqoonta dhabta ah, barashadeeda in ilaahay lagu garto. mawduucaas haddii aad u baahantahay waxaad u laabanaysaa muuqaalka labaad. haddii aadan weli pagekeena Facebook soo biirinna kusoo biir. haddii sidoo kale aadan kusoo biirin youtube-keenan isaga sidoo kale kusoo dhowo, asagana kusoo biir, iskuna day inaad bulshada kale sii gaadhsiiso. haddii aan u gudbo caawa iyo waxa aan u fadhino oo ah mawduuceena aadka muhiimka u ah oo aan horey ugu sii socono sayniska iyo qur-aanka. dunida tani haatan la joogo technology-ga iyo aadamuhu xadaarada uu gaadhay waxa ay maraysaa in aadamuhu uu ku ogaaday qalabkii uu haystay iyo aqoontiisii ilbaxnimadiisii ballaaratay. aadamaha markuu alla samaynayo in ama aadamuhu markaa uu caloosha hooyadii ku jiro in uu soo maro ama uu ku jiro 3 mugdi. waxay yidhahdeen 3da mugdina waa mugdiga ugu horeeya wuxuu yahay oo samaynaya ilmaha xuubka ku wareejisan, kaas ayaa mugdiga samaynaya. waa runtooda dabcan uu samaynaya. mugdiga labaad waxay yidhahdeen waa raximka hooyadii. mugdiga saddexaadna waxay yidhahdeen dee waa jirka qaybtiisii kale iyo calooshii iyo maqaarkii sare iyo wixii uu ku jirta ay kasoo sarreeyay ayay noqonaysaa markaasi. runtii dee waxa kani aadamuhu xilligii hore gudaha waxa ku jira qofka dee aqoon looma lahayn waxaasana la ogaa. marka aadamaha waxa agabka uu helay hadda ay heleen bulshooyinka hormaray iyo dunida hormartay ee aqoontooda hormartay, agabka ay heleen iyo technology-gan hormarsan ee ay heleen waxay sahashay inay wax badan ku ogaadaan aadamaha gudihiisa iyo sidoo kale xubnihiisu dabeecadaha ay leeyihiin iyo sida ay u shaqeeyaan. haddaba waxay noqotay cilmi baadhis lagu wada faantamo oo ciddii soo saartayna abaalmarino lagu siiyo. Morris Buka oo weliba ninkii Faransiiska ahaa buug uu qoray uu kaga hadlayay cilmiga sayniska iyo qur-aanka ayuu arrintan ku sheegay. marka uu taxliiliyey amaba marka uu faaqiday oo arrintaasi uu isku dayay bal inuu bulshada ama dadkii uu la hadlayay oo qalinka kula hadlayay fahansiiyo qur-aanka iyo xaqnimadiisa iyo culumta saynisku sida aynan qur-aanka uga marnayn. waxa uu leeyahay suuratu zumar marka aad u fiirsato waxa uu ilaahay leeyahay isla arrinta lafteeda ayuu ku sheegaya. waa 1400 oo sano iyo dheeri weliba ka hor way xilli aan technology wax kan jir. wuxuu ilaahay leeyahay khalaqakum yakhluqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. wuxuu caloosha hooyadiin ilaahay idinku abuuraya abuur kale kadib. yacni waa bini aadamku marxaladaha uu maro marka ilaahay abuurayo sida aayado kaleba ay sheegeen ama cilmiga maanta sayniskuba uu tilmaamay asaguba bal sida uu qur-aanku u tilmaamay laftiisa. saad mawduucayga maxaa aayadda ku jira oo ka khuseeya mugdiyadan ay sheegeen qolyahan maaragtay saynisku ay sheegeen. waxayna leeyihiin marka ilaahay waxa uu leeyahay wuxuu ilaahay idinku abuuray fi dhulumaatin 3 mugdi ayuu ilaahay idinku abuuray. cajiib. 3 mugdi markaa waa 3 mugdi ee Morris Buka waxa uu leeyahay waa isla 3 mugdi ee ay tilmaantay aqoonta iyo technology-ga maanta aadamuhu gaadhay ee ay tilmaantay ee xaqiijisay isla 3 wey. okay, halkaas haddaan comment ku darsado adiga oo ah muslim waxay ahayd ninkan aan muslimka ahayn waxa uu sameeyaa research cilmi baaris buu sameeyaa aqoontiisu gilgila aqoontiisu dhaqaajiya kadibna
tijaabooyin buu galaa. Tijaabadu waa muhiim. Tijaabooyin buu galaa. Mowduuc kale kaga hadli doona tijaabada iyo ambiyada qaar oo xataa wax tijaabisay oo waxa kan inuunan ahayn wax reer galbeed keeneen tijaabooyin buu galaa. Markuu aqoontiisa tijaabiyo maxaa ka yimaada? Waxaa ka yimaada inuu natiijo keeno. adigoo muslima isagu haysan source of information ay ku adag tahay inuu helo aqoonta tan kaliya observation ay wax ku raadinayaan oo in ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan, inay noqdaan dad soo jeeda, in ay isku geystaan wax, inay waxaas calculation u sameeyaan, inay waxa isku dhuftaan, inay waxaasi ay natiijada ka imanaysa qiyaasaan, inay waxaas ugu dambeyn ay gaadhaan natiijada waxa kan keentay. waayahay adigoo kitaabka quraanka haysta oo ilaahay macluumaadka noocaas uu dhex dhigay kitaabkiisa sidee macquul ma tahay in marka nin gaal ama muslim ay intuu dadaalo aqoon soo saaro marka uu soo saaro war saxaafadeed aqoontii dunida taaliin lagu daro inaad adigu soo booddo tiraahdo kitaabkayga lagu sheegay? maxaa ka qurux badnaa adiga oo kitaabkaaga intaad aqoon u yeelato, akhrido, fahanto, macluumaadka ku jira ka soo saarato, ilaa source of information baad haysataa, ka soo saarato aad marka adigu dunida u suuq geyso tiraahdo macluumaadka kan ayaan ku soo saaray, technology-ga iyo hormaray, aqoontayda hormartay, xadaaradayda hormartay, sidoo kalena waxaa saldhigaya kitaabkayga quraanka halkan una la ku sheegay. cilmigii maadiga ahaa ama sayniskan isma diidaya wax kana imse qofka ku islaami kara lahayd baad malaynaysaa iyada oo markaa iyagu hadda intay soo saartaan haddana isla iyagii markii lagu yiraahdo quraanka nabi baa saa sheegay ayaa waxay raadinayaan isla quraankii dib bay u akhrinayaan say badankood ku islaamayaan. marka bal ka waran haddii inagu aan yeelan lahayn soo saarista cilmigan iyo cilmigan inaan inagu noqono dadkii cilmiga kan dunida u horseeday, sidoo kalena ugu dambeynna ay noqotay anaga kitaabka naga noo horseeday oo alla noogu sheegay. haddii marka taasi aan ka gudbo oo commentiga dunidu waxay gaadhay arrin kale marka rabo saynis ku sheego isla quraanka laftiisu 1400 sano ka hor uu sheegay inaan iyadana kula wadaago. waa quraankana ku sheegay oo quraanka salaada ku tukato ama faatixada intaad akhridaa dharam kaga siisay qul huwallahaasi aad ku tukato oo aad imaarateen actiin ku tukato oo alam nashar ku tukato iska gaagaabinayso aanad laga yaabo inaadan akhriinba oo isla quraankaas waxaan oo dhan culumta tan ay ku jiraan. okay soo marka milyaniska wadamooyinka ku nool sidee baa maaragtay qofku markaasi lagu kala garan karaya haday isagu radii la yiraahdo lama kala garan karo haddii la yiraahdo wajiga lagu kala garto dadku isku wada kan karayaan. marka mushkilada dunida dhanka taagan bay ahayd waliba tan markii ilbaxnimadan la sii gaadhay ee dunida isku furantay waxa adkaatay in aadamihii la kala garto markii la isdhex yaacayo maaragtay dunidii ay wada dhex gashay oo gaar ahaan ay soo baxday maaragtay waxyaabaha dunidii isbaratay awal nin walba meeshiisa ku ekaa. marka waxay soo saareen marka qolyihii maaragtay culumtoodii maadida dhaqdhaqaajiyay aqoontoodii tajribadoodii tijaabadoodii waxay soo saareen aadamaha lagu kala garanayo maxay farahooda jeexjeexa yar ilaahay sameeyay. that's why ba dawlad walba u arkaysa markii lagu siinayo ID card ama lagu siinayo muxuu ahaa passport lagu siinayo waxa la yiraahdaa hebel faraha laga qaaday. waayo faraha laga qaaday bini aadan faraha la mid ah jeexjeexa ilaahay ku sameeyay ma jiro. taa waxa ka soo waxay markaa noqotay taasi intay sii ballaaratay in loo adeegsado service badan oo aadamaha noloshiisa ay wax ka qabatay. waxa ka mid in aadamii lagu kala gartay waxa ka mid ah service-ka ugu yar baan ku sheegaya arrintaas ay ku faa'iideysay waxa waaye in telefoonkaaga aad ku xirato fartaada farahaaga mid ka mid aad ku xirato jeexjeexaagana uu fahmo 3 jeer 4 jeer 5 jeer aad ku celiso kadibna uu ku fahmo dabeetana cid walba hadday timaado hadhow hadday saarto uu ku yiraahdo ma aha qofkii iska lahaa computerkan ama qofkii iska lahaa yiraahdo mobilkan. waxaan kugu tilmaamayaa macnaha muhiimadda ay yeelatay in aadamaha lagu kala garto in aynan farahoodu isku mid ahayn. farahana bini'aadamka waa laga dhigay qofka hebel baa laga dhigay maqash muhiimadda ay leedahay. haddaba arrintaas muhiimadda markaas la fahnay haddii aan ku dhaata ka waran kitaabka quraanka ayuu ilaahay arrintaas lafteeda kaga hadlay 1400 sano ka hor una ku sheegay aadamuhu inuunan isku mid ahayn farahoodu oo aynan sinayn oo kala duwan yihiin. عجيب waxa laga yaabaa sidee ku dhici karaysa waxaad la soo kala baxdaa suuratul qiyaama ama la aqsimo biyawm alqiyaama gaaladu waxay nabiga kula doodeen yiraahdeen sidee bay ku dhici karaysaa qof dhintay oo lafihiisii ay burbureen oo waxa weeye dhulka galay oo jir aanu noolayn yani lafa burburay oo haddii la taabto burbursanba sidee bay ku dhici kartaa in ilaahay dib soo celiyay ku yiraahdeen. dabeetana taasoo ilaahay ka jawaabay wuxuu yiri ayaxsabu al-insaanu aadamuhu wuxuu maleeyay an lan najmac cidaamah in aanan lafihiisa aanan soo ururinin ma taas u maleeyay buu ilaahay. okay taa markuu ilaahay ka hadlay wuxuu yiri bala hawana wadnaa ilaahay
qaadiriina waxaan awoodnaa bu ilaahay yidhi taasi waaba sahlay calaa an nusawiya banaanah inaan farihiisa sinno waa tana wato arrin cajiibo wey inaan farihiisa sinno qarniyada xilliga qofkii noolaa waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo simitaanka xagga sayska iyo dherarka iyo waxa kan inuu uga fikiro laakiin aadamuhu sidiisaba waxay aayadda qur-aanka tilmaamaysaa inaynan farahoodu sinayn waana isla shaygan maanta saynisku uu noo sheegayo wey inaan aadamuhu farihiisa sinayn aan iska mid ahayn waa marka laga eego dhanka jeexjeexa farahaaga ku yaala iyo shaxdaas ilaahay ku sameeyey wey hal qof oo qof la mida ma jiro waa runtii wax cajaa'ib oo lala yaabo wey waana wax halkaana commentigan ku darsanaya iyada lafteeda kitaabkaaga qur-aanka muxuu kaliya kaaga baahan yahay waa inaad fahantaa qofka dhalinyarta ee soomaaliyeed in yar mooyeen badankood waxay ka aaminsan yihiin kitaab qur-aanka sidaan muuqaalkii koowaad aan ku sheego waa kitaab qur-aanka wax la barakaystayay dadka dhintay in lagu akhriyo loo akhriyo qofka xanuunsanaya in lagu akhriyo qofka ducaysanaya inuu yidhaahdo wadaada iyo weerahay ugu akhriyo salaada in lagu tukado kitaab qur-aanka bas intaas ku aaminsan yahay halka kitaab qur-aanka uu ka yahay macluumaad fadhiya kitaab waa buug cilmiyeed wey markaan buug ku leeyahay markaan kitaab ku leeyahay labaduba af soomaali ma aha waa dhigana cilmiyeed aan ku dhahdo soomaaliyeed aan kugu hadlo waa dhigana cilmiyeed wey ma aha keliyata wax uun ka hadlaya aakharo iyo arrimo la xiriira maaragtay cibaado bas ehe waxa uu ka hadlayaa culumtaas aad aragtid waxaan muuqaalada dambe oo waxa weye soo socdayaanu kaga hadli doonaa sayniska iyo qur-aanka iyo waxyaabo kale oo iyaga laftooda aad ula yaabi doonto haddii aanad weli pagekanaga facebook aadan kusoo biirin fadlan kusoo biir soona follow garay haddii sidoo kale aadan youtube-ka aad ka daawanayso youtube-kana weli aadan soo subscribe garin ka mid noqo dadka youtube-ka subscribe-ta saaray sidoo kalena dhalinyarta kale u share gareeyay intaan ku kulmayno podcast-iga kan xigana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo